midna ogsoonow bini aadam kaloo dhan wax walba kula midi ma jiro. Soomaaligu wuxuu jecel yahay inta aad wax kasta isku ra'yiga ka tihiin inaad wada socon kartaa, wax yar haddaad isku khilaaftaan wayna kala kaxeen. bini aadam saasii dunida kuma noola. dadku waa kala aara, waa kala aragti, waa kala aqoon, waa kala waxbarasho, wax badan oo differences u dhaxeeya. laakiin wuxuu u baahan yahay inuu isu dulqaato, inuu ishoga tusiyo, inuu sa aadamuhu u dhaqmaan, inuu u dhaqmo mushkilaadkooda, inuu xallili karo, kaasuu u baahan yahay. marka waxyaabaha qaarkood inagoo kuba kala gedisan, xataa aragtida waddankii inagoo ku kala gedisan baynu tan isku baahi karnay, aynu tan wax ku wada lahaan karnaa. waa ka afraad ama shanaade, dadkan idinla nool waa inaad diinta gaadhsiisaa, siiba tawxiidka ilaahay inuu keliya inaad dadka gaadhsiisaa. nabiyullaahi moxamed suuraddii labaad ama saddexaad ku soo degtaa maxay ahayd? inta 10 aayadood ama 5 aayadood hore ku soo degeen ayaa waxa ku soo degay yaa ayuhal mudaththir qum faandir. yaa ayuhal mudaththir markay soo degaysay intee buu wixii loo keen waxya, laakiin ilaahay wuxuu ku yidhi qum faandir warabbaka fakabbir wathiyaabaka fatahhir warrujza fahjur walaa tamnun tastakthir walirabbika fasbir. kac oo dig baa la yidhi, dadka u dig.